gudoomiye golaha aqalka sare xubnaha golaha aqalka sare ujeedo soo jeedin akhrinta saddexaad ee sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka mudane gudoomiye sanatarada sharafta leh in sharciyeedkan hanaanka lacag bixinta qaranka wuxuu golaha aqalka sare soo gaaray 15 November 2025 iyada oo wasaaradda maaliyadda ay ka hor akhrisay aqalka sare 10 December 2025 12 December 2025 ayaa gudoomiyaha aqalka sare si rasmi ah in sharciyeedkan hanaanka lacag bixinta qaranka ugu wareejiyay guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddiga oo kaashanaya sharciyaqaanada ka howlgala waaxda shuruucda cilmi baarista iyo xasuus dhowrka iyo la taliyayaasha golaha aqalka sare wuxuu qodob u dul istaagay ugana dooday in sharciyeedkan hanaanka lacag bixinta qaranka si waafaqsan habraaca ka xusan qodobka 45aad farqadiisa labaad xeer hoosaadka golaha aqalka sare intii u dhaxaysay 13 December ilaa 18 December 2025 29 December 2025 guddiga wuxuu kulan la yeeshay mas'uuliyiin ka socday ururada bangiyada iyo xawaaladaha Soomaaliyeed ayagoo ka dhageystay soo jeedintooda ku saabsan sharciyeedkan isla 29 December 2025 guddiga wuxuu kulan su'aalo weydiin ah la yeeshay gudoomiyaha bangiga dhexe iyo mas'uuliyiin la socday isagoo ka jawaabay dhammaan su'aalihii guddiga weydiiyay sharciyeedkan hanaanka lacag bixinta qaranka wuxuu aqalka akhrinta labaad maray 10 January 2026 iyada oo ay sanatarada ka doodeen soona jeediyeen talooyin wax ku ool ah ugu dambeyn sanatarada sharafta leh waxaan si qadarin iyo xushmad ku dheehan tahay idinkaga codsanaynaa in aad sharciyeedkan ku aqbashaan kuna ansixisaan sida uu guddigu uga soo shaqeeyay maasinadiin